shirkeena halka ayuu noogu furan yahay. كذا كسبوا شكل اللي إحنا فرنسا بيتي حي كنت على مجال أمستردام لها كحوس سفرنا إنت لقات على حتى نأكل كوين. لو بحرم مجا واحد صالح أنا معمولها شركة ترانسفير جالكسي ذلك الشركة. مركب دلينيرو أي فكران أو أي isku tashtaan waxa imaanayo qurux oo dhan يا كيف كانت استعمالها الخيمة qof kasta oo xagga dibiday wuxuu ku jiraa 1% ka bulshada kamid ah ee u socda meesha wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda badan. marka aad niyada leeyahay ku jiraan oo aad timaado qurbaha sida oo maaragtay ay kaaga soo horjeesin karta xaqiiqda maskaxdaada way tahay haddii aad mashquulisid oo aad ku fikirto waxaan soo samaysaa oo 2-3 days baadi oo la dhigashada tiyo loo dhafto way lagu dhacdo dhowr jeer markaan yaraa business soo galay aad baan I used to overthink a lot oo wixii markaa ka fikirto waana gaadis laakiin marka waxaan ogaaday oo shabaab filaamay faydaacsan karto kala Allah qofka asdada wuxuu ku sheegi karaa kala tasho eventually waa ku dad saacad qaadayaan fasaad markaan business ka sameeyay valueskii baa muujiyay dadka soo raacay samaha wuxuu noqday business company la aaminayo hadda wali inaad si weeyaan waana shaqaysaa business qof soo geli waxa la yiraahdaa asaas waa key person oo shaqada sinaysa committee ka dhigaysa ka shaqsiisid maanta qofka mishan siisay qofka shaqsiisid isku mid ma shaqayna qofka shaqada waa badiisa wuxuu club shaqaynaya hadii qof baa yiraahdaa business ka 51 ملايين وياما 51% ما كسنايين magacaygu waa Xamda halkan waxaan ka dhiibanayaa feedback kulanka quruxda badnaa ee maanta halkan ka qabsoomay mahad celinayaa wiilashii iyo gabdhihii soo diyaariyay barnaamijkan quruxda badan waxa qabsoomay wax intii aan filanayay markaan meesha imanayay ka badan ka mug weyn waxaan codsanayaa mar walba in barnaamijkan oo kale dhalinyarada loo soo abaabulo waa barnaamij in badan maan bedel iyo maadhisna waxaan maanta ugu baahi badan nahay marka mar walba kulankan iyo kulamada la midkaana dhalinyar ahaan aan ku dadaalno aad iyo aadna waan ugu mahad celinayaa intii ka soo qayb gashay iyo intii soo abaabushayba waxaan rajaynayaa kulan dambe oo kan lamida inay ku kulmi doono maanta waa maalin kamida maalmaha iigu farxadda badnaay noloshada soo maray waxaan xaggan aad iyo aad uga mahad celinayaa labadayda garbood waxaan aad iyo aad xaggan uga mahad celinayaa ustaad Cusmaan ustaad Cabdiraxmaan oo arintan si laxaad looga qaatay maanta taariikh baa Antwerp ka dhacday maanta waxaan aan tusnay adduunka iyo dadka kale gaalada in la deganahay inaan nahay dad wax samayn karaya inaan nahay dad wax qaban karaya inaan nahay dad isku iman karaya waxaan si gaar uga mahad celinayaa walaalaha meelaha fog naga yimid Bashaar iyo Faadimo iyo dhammaan walaalaha kale wadamada kale jaarka Belgium la jaarka noogeen farxad weyn bay noo tahay Allah idin sharfo إن شاء الله هدي الله هذا كان كلن كان كيوجو هريو نقنيا لكن كل ما بدن إن شاء الله هدي الله هذا هدي ودن كن نقطة هدي نورث أمريكا نقطة هدي يوروب نقطة هدي ميلا بدن وأدوك كويا نقطة إن شاء الله هدي الله هذا فرينتو ونجالسيننا بلنتين هل فراش غدا فريدا هاشتاج اللهم صل على الله راعو حق على زوجي كيلو أدود ما ستين أستاذ عثمان أدود ما ستين كالين هذا وكالين لحال وين كالين هذا سو كالين لحال
allah ku sharfo ustaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Maanta waxaan dareemayaa sida inay tahay 15 May. Maasha Allah dhalinyaro badan halkan isugu timid, sidoo kale waxaan kala faa'iideysanay cilmi baa isla wadaagnay iyo khibrad. Maasha Allah tacaala aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka xafladan. sidoo kalena qabanqaabiyaasha aad uga mid celinaya sidoo kalena oo faraxsanahay inay idin la shaqeeyo. waxaan rajeynayaa insha Allah midan way ugu horeysay inaysan ugu dambeenin insha Allah tacaala. waan idin salaamaya dhammaantiin saaxiibayaal aad baan idin salaamay. waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo Ilaahay runtii noo fududeeyay waxa weeye xafladan ama munaasabadan quruxda badan sida wanaagsan noogu dhacday. marka waxaan mahadinayaa martida aan halkan ku martiqaadnay ilaa Afrika ilaa Yurub Kenya. marka ugu dambeysana waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhalinyarada kala duwan ee ka yimid Germany waxa weeye France meel walba waxa weeye Netherlands dhammaan saaxiibayaal aad baan idinkaga mahadcelinaa. si farxad ah qurux badan bay noogu dhacday. shirarka dambena insha Allah nagala soo qaybgala aad baan mahadsantahay. waxaan intii keena waa kow Soomaalinimo, labana entrepreneurship, saddexna fursad iyo xalfad oo weligiis ka dhicin Belgium waaye. maasha Allah waa ku faraxsan inay dhacday oo loo baahan inay sii dhacdo iyo fursadayaasha inay isla shaqeeyo. waxaan invent loo baahan yahay oo dhalinyarada Soomaaliya lagu dhiirigelinayo. marka hore oo sii socota aad baan u faraxsanahay intii ka soo qayb gashay iyo sida quruxda badan u dhacday. dhammaantiin waa mahadsantiin. anigoo kaleeto wax badan baan ka faa'iiday inkastoo leyd imaadeen maanta haddana notebookayga xoog buu buuxaa. waxyaabo badan oo hore u ogeyn oo dhiirigeliya baa ogaaday special markuu yahay qof Soomaali ah oo adiga kula jinsiya oo adiga kula dub ah oo haddana uu horumar gaaray. waxay ku siinaysaa motivation dheeraad ah oo kugu kalifi karaya in adigana samaysid waxaan maadaama uu qof Soomaali ah walaalkaaga aba sameeyey. taa waxay caddaynaysaa in adigana samayn kartid. xoog baa ugu faraxsanahay waana u mahadcelinaya dadka shirkan soo qabanqaabiyey. dad badan baa ka faa'iiday, dhalinyaro badan baa imaatay oo wax badan ogeyn oo laga yaabo u arkay online businesska wax impossible ah inuu yahay oo aan iyaga xirfad u haysanin, aqoonteedii lahayn, skillskeeda haysanin. laakiin maanta waxay ogaadeen inay taas ahayn wax run ah oo qof walaalkooda oo kale la mid ah sameeyey oo caqabadaha uu ka gudbay. taas oo u tusaysa iyagana inay wadadaas mar labaad samayn karayaan iyo mar saddexaad baa iyagana role model ka dhigan karayaan. bismillah barnaamijka aad u qurux badnaa maasha Allah. martay wax badan ka faa'iidnay. waxaan ugu imaanay holina ugu imaanay maasha Allah. si qurux badan oo dhacay maasha Allah. dad qurux badan iskugu imaaday, gabdho iyo wiilal iskugu jiraan. waan u hambalyeynaa walaalaheena horumarka ay gaareen. insha Allah anigana waxaan rajeynaynaa sidaas oo kale inaan ayagu ku daysano insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. magacaygu waxa weeyaan waa Cabdullaahi Maxamuud. waxaan ahay kasoo qayb galay maasha Allah. maanta dad aad u fara badan baa kasoo qayb galay. aad baan ugu faraxsanahay inaan meesha kasoo qayb galo. waxaa weeye intaas kasoo koobaya. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. magacaygu waa Maxamed Farxaan. waxaan ka imaaday magaalada Bruges oo West Flanders ku taalo. maantay waxaan u madan inaan kasoo qayb galo shirkan quruxda badan oo walaalo Soomaaliyeed iyo wiil gabdho isugu jiro u soo faa'iideeyeen Soomaalidii waxay cilmi ahaan soo barteen iyo waxay khibrad u leeyihiin business ahaan. waa Qaasim oo photograph ah. aad u weyn ugu faraxsan inaan kasoo qayb galay barnaamijkan. run ahaantii wax badan aanan aniga xataa aanan ogeyn ka faa'iideystay. walaalaha barnaamijkan sameysay waxaan leeyahay keep going. xil walbana barnaamijyadan oo kale tacamal waa loo baahnaa. mar walba inaad soo soctiin way fiicnaan lahayd. maanta waxaynu aadmaantii maalin aad wanaagsan, maalin aad farxadeeda u leh. yacni sidee dadkeenan Soomaalida meel walba dunida ka joogno aan nolosheena aan isugu filnaansho u gaari karnaa ama online kan ugu faa'iideysan karnaa. maanta aadaan ugu faraxsanahay. dad kala duwan oo imaaday, dad kala duwan oo yacni aan ka faa'iidno ama dad maxay ahayd oo ha noqoto social media ama dad business ku jiro. run ahaantii farxad weyn aynu ahayd. waxaan leenahay insha Allah tacaala aan ka faa'iideysano e-commerce. alxamdulillah caawa farxad ay ahayd inaan ka soo qayb galay Somali Business Conference oo maanta ku dhacay Belgium. dad walaalba yimaadeen. maanta waxaa laga faa'iideystay cilmi badan, waxyaalo badan baa la bartay. insha Allah waxaan rajeynayaa qaar ka badan oo ka balaaran inay insha Allah Soomaalida samaystaan. magacay weelaaray Saalax Ali Maxamed Salaaqays. barnaamijku geeka wayba ku faa'iideystay inaad xamaal leeyahay nolol wal ku bedelo haata lan qaaqsu bi karo la Soomaali foogi hatta maadaama wadada aan jooga ana Soomaali yani shaqooyin badan la hoostay yahay aan ogaanay geeka ku ogaaday. taasna wada ay tahay oo iska kooy oo meel baay aqoon leh internet si lagu shaqeysto qabidaas ku faa'iideysadii way baas la hadda wal aqoon ko maqnay tahay waan eedan kama san dadka agaasimi oo aan koreeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed
oo Usman Goosow Badiyar iyo Bashiir Geela هذا دورك قفن كوكسو إن كستو أنا ودنك كأسب لكن إن شاء الله إننا ويسي جلد حمال نسي هذا دون إن شاء الله مقعي وهبة عبد الله مقعي دائما كمدو إن هذا أبو فرح سنة ماتينا كسوق الضلاع حفلة قرثة بدنا حالة كان لقو قبطي وحنا ماليني ومركي قوات دليرو حفلة سواء سنتي دليرو سومالية سواء قاسنتي هذا قروح بدن لوغا هدليو بزنس كهرمري iyo waqtigan hadda joogno inaan la qabsano oo ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo waana u mahad celinayaa dhalinyarada quruxda badneed xafladan aad ku quruxda badan ka soo qayb gashay kuwii soo agaasimay iyo marti sharaftii speakerska ahayd ee wadamada kala duwan inooga yimaaday waan rajaynayaa inaysan noqon markii ugu dambeysay inoo imaadaan marar badan noo soo laabtaan leenahay soo dhawaada welcome to Belgium waa Shucayb Ipak waxaan faraxsanahay inaan ka soo qayb galo shirka Som Conference waxaa shir aad iyo aad u qurux badan dhalinyaro aad iyo aad u qurux badan ka soo qayb galeen si ay uga soo qayb galeen wax badan ayaa lagu kala faa'iiday waxaan rajayn doonaa insha Allah in barnaamijkan la sii hormari doono wadamo kale lagu qaban doono insha Allah waxaan idin leenahay guuleysta mar walba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad aan u faraxsanahay in barnaamijkii aan ku keenay si yaro fikir ah oo maaragtay barnaamijkaas ma qabana iyo sidoo noqon kara inuu inoo hirgalo oo maanta intaan oo dad ah walaalo Soomaaliyeed dhalinyaro oo waliba maskax furan raba inay wax bartaan wax faa'iideystaan aan meeshan isugu nimaano wax kala faa'iideysano wax kala qaadano qaban qaabiyaal ahaana sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay in dhalinyaradii timid ayna dareemin in maanta waqtigooda uu ka lumay in uu maaragtay maanta meesha ku go'een ama boorin ay ku dareemeen alxamdulillah aad iyo aad aan taasaan ugu faraxsanahay insha Allah barnaamijkan uu sii socon doona haddii Allah idmo mar kale waxaan idin leenahay aad iyo aad u mahadsantihiin barnaamijka runaanta maanta aad baa ugu farxay waayo waxaan ka helay fikrado boqol aan u baahnaa aniga ahaantayda insha Allah isla barnaamijka xiga waxaan rajayn doonaa inaan ku soo bandhigo waxa ka faa'iiday talaabooyinka ka qaaday aan rajaynayo insha Allah inaan soo bandhigo next time waxaan ku noqon doontaa adigana farxad ma ka aragto wixii halka ka faa'iiday waxaan ka sameeyay ama waxaan kaga falkacay macnaa isku day inaan sameeyo boqol ismaan aad baan kaaga mahad celinayaa waxaan ahay shakhsiga meesha ugu soo casimay waana kaaga mahad celinayaa taa boqol aad baan u mahadsantahay halkan waa Bashaar Dheere waxaan sharafaya inaan maanta ka soo qayb galo shirkani quruxda badnaa Som Conference oo ma sha Allah dhisan number inaga soo qayb galeen kala faa'iideysan afkaar kala doonay is wareysanay magaalada magaca ugu dhiba Antwerp Belgium waxaan rajaynayaa insha Allah shirkan kala qaban doono oo dhalinyarada uga faa'iideyn doono oo isku yeeri doono dadka dhalinyarada ugu qaalisan oo ugu firfircoon insha Allah taala aan isku advice gareyn doono adigoo saaxiibkay oo intaasaan social media saaxiibkoona saarkina isku aragnay rag badan oo asxaabta kamid ah isku imaanay fikrado lagu kala qaatay lagu kala faa'iideystay cilmi wadaagsi su'aalo wax walba marka insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaan kuwa badan samayn doono kana ka faa'iideysanay oo very productive oo ahaa waxaan ka xumaa dadkii maanta qadka ka maqnaa live maana samayn laakiin insha Allah waxaan rajaynayaa in la share garan doono mediadan ama content-kan la share garan doono adigana waxaan ku mahad celinayaa gacantaada barakaysan ee dhalinyarada aad ku gaarayso keep doing what you're doing and yeah see you the next one inshallah